barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag oo weheliyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sanaag ayaa magac kala wareejiyay laba beelood oo kiistii dhex maray waxaana goobta magtaasi lagu kala wareejinayay goobjoogka ahaa xogayaha baarlamaanka Soomaaliland Cabdirasaaq Siciid Ayaanle waayeel wax garad ka soo kala jeeda labada beelood ee magta kala qaadanayay waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay Cuqaali iyo waayeel wax garad ka soo jeeda beesha Cabbaas Muuse oo ah beesha magta bixinaysay iyo Cuqaash ka soo jeeda beesha Reeriide oo iyaguna guddoomiyay magtaasi maanta ay taariikhdu tahay bishii 11aad 25keedii 2020 waxaanu halka ka cadeynaynaa inaanu dilkii uu geystay Axmed Cali Maxamed uu geystay Muuse Siciid Ayaanle marxuumkeena ka baxay inaanu halka maanta kula kala wareegnay 130 halaad 43 geela oo nool 87 lacaga waanu halka ka cadeynaynaa beelaha kaleeto oo naga baxsana waxaan ugu baaqaynaa wixii dhibaato dhexdooda soo gala inay nabadgelyo ku xaliyaan waxaan halkan aan isugu nimi dhacdadii ka dhacday meesha la yiraahdo Waridaad oo lagu dilay ninka la yiraahdo Muuse Siciid Ayaanle oo ku dilay Axmed Cali Maxamed ilaahay waxaan uga baryayaa in naxariistiisa Allah ka waraabiyo waxaan kale oo aan odayada noo yimi ama aan wax ku kala qaadanay lacagta iyo magta aan ku kala qaadanay magta waa sida loo sheegay lacagtuna waa inta waa 830 geeluna waa 340 magtii sidaas ay ku dhamaatay oo maantay ayay ku dhamaatay tan labaad waxaan leeyahay Muuse Siciid Ayaanle idinkaba dhawaana ka wada dhintay ilaahay sabir iyo iimaan hayna ka siiyo bee halkiisi uu caawad khayr qabana ilaahay beenu ka baryeelaa tan kale waxaynu halka maanta isugu nimi rag tolabeen maanta wax horeynama dhaxmarin beesha Cabbaas Muuse iyo beesha Biciide waxa weeye waa dhacdii koowaad sida hawsha ka yeesheen ee sharafta leh ee qiimaha leh ee tulimada leh ee wanaagga leh waa idinka mahadnaqaynaa dhanka kale waxa halkaasi ka hadlay Cuqaal iyo wax garad ka soo jeeda beesha Reeriide ee magtan gudoomisay arinta waa laga waramay hadalkuna waa kii gaaban oo gudoon leh nimanka Cabbaas waxaanu ka gudoonay geerida Muuse Siciid Ayaanle halka laga waramayo ilaahay sabir iyo iimaan annagana naga siiyo idinkana geeridiisa oo dhintay hadda saaka idin malihiin godob baan idin daba sidana ilaahay baa ku shaqalay ilaahay baan ugu sabraynaa niqaaleebuha waan ka sabrnaa waxaan 130 halaad oo lacag iyo geel isugu jirta sida la sheegay ayaanu idinka gudoonay ilaahay kuwa agoonta loo geeyana barakaha u geliyo waxaynu isugu nimi diyadii marxuum Muuse Siciid Ayaanle waxaan leeyahay naxariistii janna Allah siiyo isaga qaadire ehelkii iyo ubadkiina awilsan ilaahay siiyo diyada loo keenay Allah u barakeeyo beesha Cabbaas Muuse waxaan leeyahay ilaahay wuxuu baneeyay 3 qodob diyo dil iyo cafi qofka la cafiyo annaguna waxaan leenahay samir iyo iimaan baanu ka qaadanay qadarka ilaahayna waa ku samirsanahay ubadkaana awilsan baanu ilaahay uga baryaynaa iyo ehelka uu ka tagay hadalka dhameeyay Muuse waa dhintay Allah u naxariisto nin ugu qaaliyo buuha saacadiis uu dhinta kadilayna qodobna kuma lahayn xulna kuma lahayn qadar baan u deynay qadar baan u deynay inta baan ka soo gudbo sanadka bii saddexaad baynu isugu nima Hargeyso diin ku heshiin diidina waa keentana waa naga idinka haynaa 130 halaad isoo anagoontaana maxaan ku raadiyay u qaadayna ilaahay u barkeeyo ugu soo duceeya ugu dambeyntii taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sanaag gaashaanle dhexe Saleebaan Ducaale Ubaxle iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan ayaa labada beelood ku amaanay sida wanaagsan ee magtan u kala qaateen markaan Muuse Siciid Ayaanle waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto maanta waxay naga baahan faataxo marno ilaahay oo dambigiisa u dhaafo beeshii iyo dadkii uu ku baxay ehelkii iyo qaraabadii iyo walaaladii iyo dhammaan waxaan leenahay beesha Reeriide ilaahay sabir iyo iimaan ka siiyo سامحة سامحة دينا ممكن مفهوم كادرينا
halkiisa ilaahay cawl khayr qaba ha idinku bedelo ubadkii uu ka tegay iyo ehelku ka tegayna ilaahay ha barakeeyo beesha cabaas muuse kiiskii lagu heshiiyey 130 halaad ee dhogor iyo lacag ku soo bixisay muddadii lagu heshiiyeyna idinkuna khayr allah idin siiyo halkii ka soo baxdo wax khayr qaba allah idinku bedelo waxaan si gaar ah u taabanaynaa waxay fiican tahay ummadda sidan oo kale halkan hadda saaka ka dhacday ummadda hadday wax ku heshiiso inay heshiiskaasi fulo ilaahay u naxariisto marxuumkaana uga dhintay muuse ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo samir iyo iimaan dhammaanteen ilaahay naga siiyo waa inuu naga dhintay sarkaal buu ahaa sarkaal dowladda qaranka u shaqaynayay buu ahaa qaranka waajibaadkiisu gudanayay buu ahaa gacanka xaq daran baa dishay laba nin oo aano iskule ama isku dhowna may ahayn dad kala fog oo aad u kala fog bay ahaayeen amar baa meesha iska yimi ilaahay samir iyo iimaan horta naga siiyo dhammaanteenba ilmaha ayaan le waxaan jeclahay inay ku samraan ninkaas oo ay beesha ay wax ka galeen beer barigaa jirto oo waa beesha la yiraahdo waxa la Abbas Musa la yiraahdo oo Salmaan Cabdullah la yiraahdo waxa weeye waa beel fog oo meel fog jirta ruuxaantii way dadaaleen reer ceergaaba haddaan nahay reesana haddaan nahay say magtaa ugu dadaaleen wax ugu dadaalay oo dadka waaweyn ee qabiilkada waaweyn waxaan karaanahay oo naftaan bay noo keeneen Cabdiraxmaan Maxamed Xidig San TV Ceergaabo